kulanti wacan daawadayaal idin hantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii toddobaadka iyo caalamka oo aan dib ugu fiirin doono dhacdooyinkii toddobaadka ugu xiisaha badnaa. haddaba aan ku bilownay toddobaadkan gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey ayaa socdaal ku tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo oo halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay. haddaba waxaa hadal badan dhaliyay kadib markii lagu arkay isagoo oo la sawiran qaar ka mid ah mucaaradka dawladda Soomaaliya. haddaba maadaama ay fiicneen xiriirka siyaasiyiinta uu la sawiran yahay iyo dawladda federaalka waxay keentay in uu yimaado tuhun fara badan ama siyaabo kala duwan loo fasirto. balse gudoomiyaha ayaa sheegay in uu halkaasi u tagay in uu ka qayb qaato shir ay soo qaban qaabisay beesha caalamka oo loogaga hadlayo geeska Afrika. isla markaana ay raggan halkaasi isku arkeen hambaliyo wax dhaafsanna aysan ka wada hadlin. laakiin haddaan is weydiino maxaa ku jaban hadday xitaa siyaasad ka wada hadlaan? miyaysan raggani ahayn Soomaali? dhulka ay matalaanse miyuusan ahayn dhul Soomaaliyeed? waxaan oran karaa waaba Ilaahay mahadiis haddii uusan maanta gabre ku dhex jirin. midda kale waxay u eg tahay baryahan in kolley laba loo wada shirayo. dhanka kale Faarax Macalin oo ah siyaasi rugcadaa ah oo ah afhayeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya ayaa isna dhankiisa buuq badani ka yimid kadib markii uu bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal. waxaa jira isbahaysi aad u xoog badan oo ka bilowday geeska Afrika oo ka kooban ONLF, TPLF, Jubaland iyo mucaaradka dawladda Soomaaliya. isagoo oo hadalkiisa sii wata mudane Faarax Macalin waxa uu yiri waxaan shaki ku jirin in dawladda Kenya ay isugu geysay xooggeedii sidii ay u hirgelin lahayd. maxaa ku dhacay heshiiskii Farmaajo iyo Uhuru ayuu yiri. waa eedayn aad u weyn runtii, balse ma aha war la xaqiijiyay. waxay u eg tahay fikir ku kooban Faarax Macalin ama cabir uu ka qaatay kulankii aan ka soo hadalnay. hal mid ayaan ognahay, TPLF iyo ONLF wax xiriir ah oo ka dhaxeeya ma jiro, waayo 30 sano ayuu dagaal ka dhaxeeyay labadaas. ONLF heshiis ayay hadda dawladda cusub ee Ethiopia la gashay. Tigreena wax tala ah hadda Ethiopia kuma laha. haddaba hadalka Faarax Macalin ayaa qaar ka mid ah taageerayaasha ururka ONLF ka careysiiyay iyaga oo qaar ka mid ah ay ku tilmaameen danayste, callbox iyo waxyaabo la mid ah. laakiin Faarax Macalin shalay wuxuu ahaa siyaasi ONLF garab taagnaa in badanna u dooday. marka maanta markii uu ka fikir duwanaaday miyuu noqday qof xun? horaa waxaa loo yiri siyaasaddu ma laha saaxiib joogto ah ee waxay leedahay dan joogto ah. Sheekh Kenyawi ayaa toddobaadkan lagu dhaganaa kadib markii uu yiri yaa guursanayo 40 jir PhD wadata. soo gabadhii inay wax raadisaa dhowr sano ku qaado markay shaqadii hesho ma inay guursatay rabtaa? maya, waa inay dhididaa oo ay dhafartaa oo ay lacag ururis bilowdaa. ilaahay 40 sano gaarsii gabadhii. 40 sano jirtaa gabar 40 sano jirta oo haddana wadata shahaadadan PhD-ga la yiraahdo kan guursanaya waa kii. sababtoo ah gabadhan baariyad raaliyad noqon mayso. ka guursanaya waa wadaad masaajidka quraanka iska soo barto xirow ah waaye. ma ogolaanaysaa marka hore? waa maya, ma ogolaanayso. sheekh, baariyad ama raaliyo maxaad u taqaanaa? ayadoo PhD wadatase miyaysan raaliyo noqon karin? mise jikada iyo guriga oo la joogo ayaad raaliyo u taqaanaa? sheekh, qarnigii 19aad laguma jiro. mar sababtoo ah way iska shahaadadan ma aha diiniye la soco, waa maadi. kullama aad wax sii baratid waad sii kibraysaa.
xogo kibir baa ku sii galay runtii taas kulama qabna sheekh PhD maalinkaa qaadatid dadka kor ayaad ka soo eegaysaa dadkaana dad duurka ka yimid aan waxba aqoonin juhalaa waa inteena badan laakiin yaa inta badan dadkaan dhan inay kaa hooseeyaan aad malaysaa soo gabadha maxay rabtaa guurkeeda iyadoo 40 jir ah ayayba waxay u shardinaysaa iyadaaba condition iyo shuruudo wadataba na 40 sano jirtaa waxba kuuguma harine ya raalli ahaada ya adaa 40 jir ah waqtigana waa kaa tagayay qof yahay ma ku daneeyaa hal iyo laba inta kaa hartay ma kaa soo saaraa run ahaantii taasi waxaan u arkaa inay tahay aflagaada aada u weyn oo loo geystay haweenka Soomaaliyeed fiiri horta Sheekh Kenyaawi inta uu ka sheegay qaadashada PhD waa run waqti dheer ay qaadataa oo celcelis ama average-ka da'da adduunka lagu qaato PhD waa 35 dhib badanna waa loo maraa laakiin waa wax ay adduunka oo dhan ay ka siman yihiin mana aha wax dumarka kaliya u gaar ah guurka iyo darajada waxbarashada iskuma xirna guurku waa choice qof yaraan ayuu ku guursan karaa qofna weynaan ayuu ku guursan karaa laakiin in waxbarashada loo isticmaalo wax dumarkeena hoos loogu dhigayo runtii waa calool xumo waayo dumarka Soomaaliyeed waa laf dhabartii ummadda Soomaaliyeed 30 sano ayayna wadeen waa dadka kaliya ee wax dhib ah aan laga tabanin waa kuwa maanta magaca Soomaali kor u qaaday waa inaan ka fogaano marka wixii niyad jab u keeni kara isla markaana aan sii dhiirigelina Sheekh Kenyaawi runtii waa shakhsi aad u wanaagsan una malayn maayo inuu xumaanto ula jeeday wuu khaldamay waayo ma khaldame waa Ilaahay raali gelina wuu ka bixiyay mahadsanid Sheekh Kenyaawi toddobaadkan qofka kaliya ee lagaga cabanay dhanka dumarka ma ahayn Sheekh Kenyaawi oo kaliya haddaba wiil ka ciyaara NBA-da ama kubadda kolayga ee Mareykanka ayaa waxa uu yiri hadal ka careysiiyay haweenka madowga ee Mareykanka kadib markii uu ku tilmaamay ay careysan balse markii dambe raali gelin ka bixiyay ha socoto raali gelinta dhanka kale maamulka Somaliland ayaa soo saaray amar inaan hoteelada lagu qaban karin shirar aan dawladdu fasaxin marka laga reebo aroosyada waa ka barsaabka gobolka Maroodi Jeex jaamac Xaaji Axmed waxa jira dad intay ka yimaadaan wadamada ay dariska nahay sida Soomaaliya oo kale shirar ama tababaro waxay ku sheegaan ama ku qabtaa hoteelada horena way u dhacday qaar kamid ah waan ka joojinay saad la socotaan qaar wax tababaro ay ku sheegeen doonayeen inay ku qabtaan hoteeldana marka runtii anagoo ka duulayna amniga guud ee caasimadda iyo qaranka Somaliland si aanay ugu soo dhuumanin dad ujeedooyin khaldan leh ayaan soo saaray amarkan kamaan barsaab waa maxay ujeedada dhabta ah ee sharcigan waayo waxay u eg tahay arrinkani arrin ku xiran dhacdooyinkii toddobaadkii hore isla markaana aad moodo inay jawaab u tahay ururada mucaaradka xisbiyada qaranku xuquuq bay leeyihiin waa xisbiyo qaran oo Somaliland ay leedahay wax runtii xadgudubaha warqadaas iyaga ay u leedahay ma jirto wax gaar ah iyaga lagu taarget gareynayaan haba yaraatee ma jirto waa iyagu dad muwaadiniin reer Somaliland haddii aanay ahayn buubal biyo kashiisa ku jiro ka didaaco iyagu aanay si kale u fasiranin wax ujeedo haba yaraatee iyaga runtii aan uga jeedna ma jirto iyaguna runtii waxyaabaha ay qabsanayaan inay sifaha sharciga iyo qawaaniinta dalka u yaala ay soo maraan ayaa xaq loogu leeyahay iyaguna wixii xuquuq ay leeyihiin inaanu ilaalino ka xukuumad ahaan xaq bay noogu leeyihiin marka barasal amarkan iyaga miyuu qabanaya cid kasta oo shirar sharci darro ah qabata u qabanaya iyaga aan kugu celiyo barasab iyaga ma qabanayaa amarkani oo kulamadooda markay hodheelada ay ku yeelanayaan waraaq bay idinka baahanayaan mise way qabsan karaan waxa loo baahan yahay shirarkooda caadiga ah ee gudidooda fulinta iyo xisbiyadu way qabsadaan shirarka habeen walba way qabsadaan cidina ma farageliso
laakiin wixii sidii maalintii dhaweydoo kale ah oo runtii dee isu soo baxoo kale marka la samaynayo dee aduguba waad garanaysaa waxa weeyaan dee dalku sharci iyo xeerar buu leeyahay waa inay u maraan broseska sharciga ahaa ee qawaaniinta dalku ay dhigaysay haddaan si fiican u fahanay barasaab hadalka marka hore caddeeya almiino waxaad dhahdaan waxaan rabnaa inaan kontroolno ururada mucaaradka fiiri dowladdu mas-uuliyad ayaa ka saaran ammaanka waddanka laakiin ma aha inay ku tumato xuquuqda muwaadiniinta xorriyatul qowl iyo in la isugu yimaado oo mudaharaad loo soo baxo iyo madax bannaanida saxaafaddu waa waxyaabaha keli ah ee waddanku uu ku shaqayn karo dhanka fanka fanaanada Farxiyo Kabayare ayaa si aan caadi ahayn loogu soo dhaweeyay kadib markii ay booqatay Somaliland iyada oo ay soo dhaweeyeen dhamaanba ururada bulshada faraxsanahay waxa way safaradu iskuma jiraan safarkan waa iga duwan yahay safarada kale ee adduunka aadi jiray waxaan joogaa Somaliland gaar ahaan waxaan joogaa caasimadda Hargeysa hamigaygu wuxuu ahaa inaan imaado ilaahay maanta suuro galiyay waxaan dhammaan u mahad celinayaa fanaaniintayda abwaaniinta shacabka dadka ay wada jecel ee walaalahay ah ee aan jacaylkooda halkan ku imid waxa waaye lama soo koobi karo farxadayda waa idin jeclahay subax aalasayn ku soo beegmay flight galaba waan waayay saasoo tahay waxa waaye wax halkan dhooban waa dad jecel oo ii soo kalahay marka waxa waa war leema wadaynaahe waxaan leeyahay taageerayaashayda especially taageerayaashayda reer jamhuuriyadda barakaysan wax badan waxay tireenaa fadxiyada afgabaadsiga iska daawaan imaanaya beenta weeyna meedan imaanayn dhukura dheema waa joogtaa ya kabta xaaji in the house waxay ka sheegtaa Hargeysa waa isla joognaa love you guys Farxiyo ayaa horay wada u sii xaalatay kadib markii ay hadda ka hor u heelisay fanaanka BK horta wixii kaftan ah waa la isku leeyahay oo waa lama kala xanaaqan laakiin runtii Farxiyo waa qof wanaagsan oo qalbi xaaran oo waliba wixii uurkeeda ku jira aan cidna u qarinin mar kale waxaan leenahay hambaliyo waxaan filayaa inaad u sii gudubto dhulalka kale ee Soomaalidu degto sida Jigjiga 16 nin oo ciidamada badda ee Mareykanka ayaa loo xiray kadib markii la soo ogaaday in ay shacab ka gudbiyaan xuduudda Mareykanka iyo Mexico 16 Marines have been arrested at Camp Pendleton on charges ranging from human smuggling to drug-related offenses. An additional 8 have been detained on the drug charges. warninkii Trump ahaa balaayo ayaa ku dhacday derbi ayuu dhinac ka dhisayay dhanka kalena rag baaba badda laga soo gelinayay kaaga darane waa ciidamadiisa waxa ku sameynaya dhabar jabinta dhanka sportiga toddobaadkan kooxda Arsenal ayaa ugu dambeyn cayrisay tababarahoodii Unai Emery Mr Good Evening Unai Emery ayaa kooxdan runtii dhulka la galay in muddo ana ay taageerayaasha Arsenal ay dhagax iyo mindi saan hore idin ku sheegnay ay ku raadsanayeen balse aad moodo maanta in ay aad ugu faraxsan yihiin kadib markii la cayriyay inkastoo taageerayaasha Manchester United aad moodo in hadda ay murugadii iyo ka go'aanay dhanka horyaalka Champions League ayaa waxaad moodaa kooxda Real Madrid oo iyagu in badan maryahan yara liitay in ay dib u soo noqonayaan inkastoo oo ay kaalinta labaad ku soo baxeen groupkooda iyadoo oo markaasi ay ka dhigan tahay in ay ku aadi doonaan saddexda koox ee la leeyahay sanadkan way ugu adag yihiin waa kooxda Juventus oo waliba laacibkii hore ee Real Madrid joogi jiray ee Cristiano Ronaldo uu hadda uu sugayo oo moodo in uu midiyihiisa u seefaysanayo iyo Manchester City oo iyaguna aan ka liidanin iyo waliba Bayern Munich dhanka ciyaaraha Euro ayaa waxa la sameeyay isku aadki iyadoo oo markaasi aad moodo in group of death ama groupka ugu adag ay isugu soo baxeen kooxaha ugu khatarsan Europe waa kooxda France oo ah waliba kooxdii haysatay koobka ciyaaraha adduunka iyo Portugal oo ah kuwii iyagu markaasi haystay koobkii hore ee Euro-ga iyo Germany oo ka liidanin waxaad moodaa in la yiri lafa maroodi iyo kala isku jiro
الدعوة البرنامج كني تضبعت كان ونجا أنت أنا هود أقول كل مدة مد كان لمدة وحنا إذا كنت جينا سيداس إيو نبت قليو